horumarka dalku waxa uu ku jiraa qoyska oo hagaaga qoyskuna waxa uu ku jiraa lamaanaha oo aqoonta qoyska yeesha. haddii ay lamaanuhu aqoonta qoyska yeeshaan waxa ay soo saarayaan ubad tayo leh oo si wanaagsan loo barbaariyey oo kaalin kasta oo ay nolosha ka galaan sida ay tahay uga soo baxa dabeetana horseeda horumarka dalka. waa kuma ninka aad raallida kala noqotay noloshaada, waa kuma ninka aad ku aamintay naftaada, waa kuma ninka noqon doona ubadkaaga aabahood. waa su'aalo muhiim ah oo ay tahay inay gabadhu isweydiiso inta aanay guursanin ka hor, inta ay xulanayso lamaanaheeda nolosha la wadaagi lahaa. haweenku marka ay ninka dooranayaan amaba marka ay ninka aqbalayaan waxa muhiim ah inay ka baadhaan oo ay ka qiimeeyaan 5 tilmaamood oo asaasi ah. tilmaanta ugu horeysa ee ay tahay inay gabadhu ku xulato ninkeeda waxa weeyaan waa islaamnimada. islaamnimadu waa shayga ugu muhiimsan, waana shayga ugu horeysa, waana halka ugu horeysa ay wax ka eegayso. ilaahay quraankiisa waxa uu ku leeyahay ha u guurinina hablihiina gaalada xitaa haddii aad ka heshaan gaalada. nabiguna waxa yidhi sallallahu alayhi wasallam xadiisu micnihiisu ahaa islaamku isaga ayaa sarreeya ee lagama sarreeyo. tilmaanta labaad ee ay tahay in ay gabadhu ka eegto ninka waxa weeye waa habdhaqan wanaagsan. micnaheedu maaha qof kasta oo muslim ama nin kasta oo muslim waa uu habdhaqan wanaagsan yahay, balse waxaa jira rag fara badan oo muslimiin ah oo aan lahayn habdhaqankii islaamnimo. marka waa muhiim inay gabadhu ka qiimayso ninka habdhaqanka, waayo waxa uu arrintaas saameyn ku yeelanaysaa ubadkiisa oo had iyo goor ubadku waxay noqdaan sida uu aabahood u eegyahay. ha ku gaabsanin oo keliya ta gabadh yahay marka aad ninka qiimaynayso salaadii ayuu tukadaa, uu soomaa, waxa uu u dhexeeya shaqada iyo guriga. intaas kuma filla si aad qof u qiimayso. sidaa daraaddeed waa inaad si qoto dheer aad u qiimaysaa ninka adigoo waraysi ka gelaya asxaabtiisa iyo sida ay yihiin, waayo haddii aad doonayso inaad qof habdhaqankiisa ogaato waxaad ka ogaan kartaa asxaabtiisa. sidoo kale waxaad ka ogaan kartaa gurigiisa iyo meesha uu ku soo barbaaray, hooyadii, aabihii, walaaladii iyo sidii ay u soo barbaariyeen intaba. marka hore way ku doontaa ragga iyo dee lacag labadaba dee way kala muhiimsan yihiin. tan ugu horeysa ugu muhiimsan waxa weeyaan inaan qofka ku xusho diinta, qofkan diin ma leeyahay. talabaadeen isleeyahay way ku soo xigtaayeen anigu qofka ku dooran lahaa waxay ahaan lahayd dabeecad ma leeyahay qofkani oo ma la dhaqmi karaya dadkii, waayo dad waxaa jira wax kasta u dhammaystiran yihiin, hanti haysta, wax kasta haysta, laakiin dabeecadiisa aanad sinaba ula joogi karayn. ta saddexaad isleeyahay way ku soo xigtaa waxa weeyaan qofkani ma yahay qof xil qaadi karaya ama mas'uuliyad qaadi karaya. marka haddii la helo qof isku filan oo kale oo diin leh dhinacyo fara badan oo wanaagsan laga eego sida diinta iyo qofkani inuu isku filan yahay kaliya tii lacag inaad tirahdana maaha, laakiin qof isku filan isagii oo nolol qof kala qaadi kara iyo astaamo saasa ku dhowaan odhan kara haddii laga eego. tilmaanta saddexaad ee ay tahay gabadhu inay ku eegto ama ay ku xulato ninka nolosha la wadaagi lahaa waxa weeye nin qaadi kara mas-uuliyaddeeda. macquul ma aha inuu gabadha guursado nin aan guri lahayn, aan kira awoodin, aan la biilin, aan shaqaysan oo aanu dakhli soo gelin, aan guriga soo dhigi karin baahiyihii asaasiga ahaa ee uu guriga u baahnaa. waxaa jira dhallinyar badan oo dugsi sare ku jira amaba jaamacada ku jira oo isugu sheekeeya nolol khiyaaliya, deetana hadhow yidhaahda nolol baynu wadaagaynaa, caw baynu ku wada saxanaynaa, 3 waqtina mar aynu wax wada cunaynaa. taas waxaa ka dhalatay hadhow marka ay guriga isugu yimaadaan haddii ay suuro gashaba in marka ay mas-uuliyaddu ku soo baxdo ay ku ballaadhato ay dabeetana kala tagaan, qoyskaasuna uu sidaa ku burburo. heysiiska aan maqlayay ama naloo soo gudbiyey waxaa ka mid ah oo inan yar iyo inan yaroo isguursaday, aad bay u yaraayeen, way isguursadeen, kadib way kala tegeen. maxay ku kala tegeen markaa? waa arrin cajiiba. waxay ku kala tegeen waxa ay isku qabsadeen dacaskii ay inantu lahayd ayuu inankani qaataa, kubaddu ku soo ciyaara. waa inan yar, mas-uuliyaddii ma laha, saas daraaddeed inanta dacaskii ay lahayd ayuunbuu ka qaataa, kubaddu iskaga soo ciyaara. markaa inad la yidhaahdo waar inantan dacaskeeda u daa, aynad ku tiraa war dacaskayga ii daa, iyadina bal haddee mas-uuliyaddii dee xaasnimo ismay odhan xitaa please bal odaygaaga ixtiraam, laakiin iyadina dacaskeedii bay ku qabsatay war dacaskayga isii. yani waxa weeye waa mas-uuliyaddiiyo aan totally la ogeynba yaa mas-uuliyaddan leh. saas daraaddeed dee in dacas laysku qabsadaa meesha ma taale, waa in qoys la dhiso bulshada wax faa'iido leh lagu soo kordhiyo. inuu ninku qaadi karo mas-uuliyadda gurigu waa mid ka mid a tiirarka ugu waaweyn ee ay nolosha qoyska ku taagan tahay. nebiguna waxa yidhi sallallahu alayhi wasallam xadiis uu micnihiisu ahaa dhallinyaroy kiina awoodo inuu guursado ha guursado. awooddaas micnaheedu waxa weeyaan uu mas-uuliyadda guriga haddii uu qofku u leeyahay inuu qaadi karo.
gabadh yahay marnaba ha yeelin oo ha aqbalin nin aan mas-uuliyaddaada qaadi karin, nin aan ka soo bixi karin waajibaadka uu ilaahay kugu dhiibay. yaani ku dagin hadalladiisa macmacaan iyo heesaha cishqiga ah ee uu had iyo goor kuu soo diraayo si uu kugu hanto. berigii hore inantii noolayd gacantaa lagu hayay oo waxay u dhaxay reerkaa ay ka dhalatay hadday ka baxda meelay u baxdaa may jirin. laakiin maanta inanta joogta haddii la canaanto dee la isdhaahdo wiilkan baana diinkeena hadday tidhaahdo wiilka iyo reerku isarkaanoo idhaa hebelna wanaagsan maahae hebelaayo maxaa nin wanaagsan wax in la garanayaba uu yahay. deedna waxaa laga yaabaa hadday inanta la sii hadloo la yidhaahdo cid wanaagsan xulo inay intay cadhooto magaaladaba iskaga tagtoo la yidhaha inanta ama Jabuuti joogta ama waabay taariib bay u xidhxidhatay. marka waalidka culays badan baa haysta. waxaa laga yaabaa gabadha in maantoo la isdhaahdo ama ha wanaagsanaada ama ha xumaada intii la odhan lahaa inantii nidaam aan wanaagsanayn baa lagu guursaday haddii lagaa ka haysta waa alxamdulillahi rabbil caalamiin. muhiimadda taasay saaraan. iska mashquul badanna uu jiraayo dadkii wax badan oo ay qabtaan iyagoon jirin haddana noloshiibaa qof walba muud iyo humeekaysa. dabeedna way iska adag tahay cidda og inanteedan iyo cidda u keenaysa ilidaa. tilmaanta afraad ee ay tahay gabadhu inay ka qiimaysan ninka waa talkiisa. talku waa mid muhiima diinta islaamka marka la eegayo. waalidiintuna waxay had iyo goor ugu warwar badan yihiin inantooda ninka la wareegayo mas-uuliyaddeeda iyo reerka ay la xidhiidayaan. waayo haddii uu xididku xumaado wax walba uu xumaanaya inanta waalidkeedna arrintaas dhib ayay ku tahay. in la ogaado ninka iyo talkiisu waa arrin muhiima. waayo haddii uu ninku hadhow khalad sameeyo cidda lagala xidhiidhaya waa talkii. sida oo kale haddii ay xaafadda caawimo u baahato oo ay inantu ka fogtahay xaafadooda cidda caawinaysa had iyo goor waa tolka ninka. dumarku diinta islaamka dhexdeeda karaama ayay leeyihiin. sidaa daraaddeed haddii uu nin doonayo inuu guursado gabadh waa inuu talkiisoo kaxaystaa, waa inuu imaadaa inanta gurigooda deetana uu weydiistaa inanta aabaheed ama cidda mas-uulka ka. inkastoo ay haweenku iyagu jeclaan inay ragga saasa helaan laakiin inta ninku wax gabadh baalan kara aanay iyagu xulan jirin laakiin gabadha waa lagu siiyay noqon jirta. haddana haweenku waxay ku raaci jireen ninka doodiisa iyo aftahmadiisa, geesinimadiisa, deeqsinimadiisa iyo magaciisa iyo ciddu ka soo jeedo. taasna waxaa ku caddanaysa markay dhallinyartu ciyaarta isugu yimaadaan iyo ciyaar gudka hal xidhaalayaashii ay isweydaarsan jireen. gabadh baa wiil usoo hasaawo tegay oo dabadeedna way tidhi dhagax bay u tuurto dhagaxaasoo deedna dee wuu ka jawaabi kari waayo markaas buu dhima dhagax baa la soo haa waa iskaga tagtayo mid kalaa muddo soo hasaawo tego maas bay tidhi hoo dhagaxaasoo haddaad doonaysa inaanu hadal wadaagno. dabadeedna markaas buu intuu ku soo celiyidhi hoo soo calali waaye. gabadhaasi ninkii hore waa iskaga tagtay laakiin kan dambe hadalkii waa usii furfurta way ugu xisoo tiri dhulka duub. deedna wuxuu yidhi ka dhaqaaq waya maarta. deedna waxay aragtay in la isfahmi kara uu yahay caqliyadiisa iyo garaadka garashada ninka aftahmadiisa iyo hadalka ninka siduu hadal aqoonka u yahay. sidoo kale ninka iyo geesinimadiisa iyo siduu magac ugu leeyahay dood iyo deeqd iyo dirirta. tilmaanta shanaad ee ay tahay inay gabadhu ninka ku xulata ama ay ka qiimaysaa waa quruxda iyo xoogga. quruxdu ma aha shay laysku waafaqsan yahay balse qofba wax ayaa la qurux badan. sidaa daraaddeed gabadhu marka ay ninka xulanayso waa inay ku xulataa ma yahay mid qurux badan. quruxdana xaggeeda wuxuu noqonayaa ka marka ay shaqax ku siiso ama ay aragto ay laabteeda ku degayso ama ay ku indhaqabowsanayso. nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku boorin jiray wiilka iyo gabadhu in ay is arkaan inta aan isguursanin ka hor. sababtu waa maxay? sababtu waxa weeyaan nolol dheer ayaa ay wada wadaagayaan. sidaa daraaddeed waa inay isku qanacsan yihiin hab muuqaal ahaan. haddii uu ninku diintiisu ay wanaagsan tahay habdhaqankiisu inuu wanaagsan yahay balse hab muuqaalkiisu aanay qancinin gabadha taasi mushkilada ayay ku tahay guriga. cumar bin khadaabna radiallahu canhu waxa uu odhan jiray dumarkaa ku khasbina nin foolxun waayo iyagu waxay jecel yihiin waxa aad jeceshihiin oo qurux ah. habluhu yaanay marnaba guursanin nin aanay ku qanacsanayn naftooda. sida oo kale marka ay ninka qiimaynayaan ha ku eegaan diintiisa, habdhaqankiisa, ta saddexaadna ha noqoto mas-uuliyaddiisa. deetana wixii intaa ka dambeeya tilmaamaha kale ha ku qiimeeyaan. tilmaamaha kale ee ka soo hadhay saddexdaas yaanay noqonin kuwa koobaad ee ay ninka ku qiimaynayaan balse diinta, habdhaqanka iyo mas-uuliyadda saddexdaasu mar walba ha noqdaan saddexda ay had iyo goor ninka ku qiimeynayaan. sida oo kale haweenku ha iska ilaaliyeen khiyaamada ay doonayaan inay raggu khiyaameeyaan. waa ragga aan mas-uuliyaddeeda qaadi karin ee doonaya inay meel cidlaa la tagaan iyagoo ku hananaya hadallo iyo kalgacal iyo naxariis iyo heese cishqiya iyagoo ku odhanaya qof weyn ayaa tahay waad ismaamuli kartaa inamar aynu baxsannahay. sharaftiisu waxay ku jirtaa inuu ninku tolkii soo kaxaysto dabeetana uu xaafadda kuugu yimaado uu aabaha ku weydiisto uu sidaa kuu kaxaysto. ilaahay ayaa qur-aankiisa waxau ku leeyahay aayaday micnaheedu tahay guryaha uga kaalaya kadinkooda oo ay micnaheedu tahay inanta gurigooda ugu kaalaya oo ehelkooda iyo tolkeeda weydiista.
you.